محمد حاجي آدن علمي وزير دولها وزارة waxbarashada iyo tacliinta sare uu helay gudoomiyaha hay'adda imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo qaybo ka mid ah warfiyeennada kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa waxa ay shaaciyeen inuu soo gabagaboobay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee fasalada 8aad ee dugsiga dhexe iyo waliba fasalada 4aad ee dugsiga sare oo horaantii toddobaadkan ka bilaabmay guud ahaanba Soomaaliland iyagoona u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay sidii uu soo gabagaboobi lahaa imtixaanaadka kaliyoon jecelahay inaan u duceeyo ardaydii sanadkan imtixaanka u fadhiisatay runtii hadaanu intii horeeyay markaan bilaabaynay aynu xogaa hanjabaade iyo wax isku sheeg meesha ku jiray imikana waan u ducaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inay ardaydii dadaashay ee soo dhafartay ee wax soo akhristay inay guul fiican ku guuleystaan baan ilaahay uga baryaynaa waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad ku gaarsiiyo natiijada ideelkeenba si ay jaamacadahooga u galaan taasi waa taa horaan ugu sheegay ardayda waxa weeye macallinku waa waalidkuna xataa dhirbaaxadiisu waa dawo canaantiisuna waa taxliil waxa weeye macallinkuna waa sidaa wixii yaraaye qardoofka ahaa ee laysyar wixii waxba ka soo qaaday ardayduna maanta macallimiintu isku sawirayeen macallin hasku ka sawirno markii hore wax laga yaabay in la isku hanjabayo waa yahay bal haynoo dhamaado horta waxa weeye inta aynu ku noolahayna waa sidaa waaynu is ixtiraamayna waan is cafinaynaa iyaguna ardaydana waxaan u sheegayaa inay ku niyad samaadaan wax badan baa hanjabaado badan kalaaska laga dhax yiri hanjabaadu dhamaanteed wada ciqaab maaha waalidiinta mid baa ku yar baraarujinaya waalidow mas'uuliyadda ku saaran waxa weeye ardaygu intuu macallinka la joogo waa in yar inta badan laakiin aad ku la joogaan bal inaan ku ahaanina gunbay ka tolantaaye waqtiga imtixaankun hadaan isku nimaadno annaguna wax mamnuucayna ardaydiina wixii ay sidato waa mushkilad deelinka qudhin inaad noo dhaxaysaan baa loo baahay waxay wasaaraddu mamnuucdo inaad u sheegtaan taasoo runtii ahayd markii ugu horeysay ay wasaaraddu si weyn u suurta geliso inay ka gaadho go'aankii isaga ahaa oo runtii inoo suurta galay iyada oo runtii arrintaana aanu uga mahad celinayno dhammaanba intii nagala shaqaysay hadday taladeeda tahay iyo hadday taagteeda tahayba aad iyo aad ugu mahad celinayno Cabdi Fataax Ismaan telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa